maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo badan, waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiile aad u wanaagsan leh. waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada Soomaaliyeed, ubadka Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed. waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir Faarax, dadaalkii ay sameeyeen oo ay ahayd ka soo bilaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka waxbarashada dalka, inay dib u eegis ku sameeyaan sida ay wax u socdaan, kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada Soomaaliyeed iyo waalidka Soomaaliyeed loo naxariisto, dib loo eego, ayagoo markii ugu horreysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka ka cafiyey, kadibna ka soo gudbay u arkay inay laga maarmaan tahay in dadka Soomaaliyeed dawladdu ay ku celiso canshuurta ay ka qaado. 3,000 oo macallin inay laga maarmaan tahay ardayda Soomaaliyeed si ay wax u bartaan, oo in ka badan dhowr milyan, 3 milyan gaaraysa oo arday oo Soomaaliyeed, ubad Soomaaliyeeda oo gaaray xilliga waxbarashada laakiin aan helin fursaddaas, inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho. aad iyo aad bay wasaaraddu runtii u mahadsan tahay oo wasiirku hormuudka ka yahay iyo wasiir dawlaha, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waan ku ammaanayaa. markaan saas leeyahay, waxaa wasaaradda ka mid ah dhammaan wasaaradaha waxbarashada ee dowlad goboleedyada way ammaanan yihiin, wayna ku mahadsan yihiin. waa lagama maarmaan dawladdu inay khadamaad siiso shacabkeeda. dawladdu waxay qaadaa canshuur, canshuurtaas dadka waa inay ku noqotaa iyadoo adeeg amni, adeeg waxbarasho, adeeg caafimaad. tani waa adeeggii waxbarashada oo aan bilownay ilaahay idankiis, oo aanay ku socon doonto arday Soomaaliyeed oo wax baranaysa, oo aan gaari doonno insha Allahu kulligood inay awood u yeeshaan inay iskuulka tagaan ayaga oo aan ka baqaynin fiiga laga qaado, ayaga oo aan ka baqaynin inaysan access u haysanin oo meeshaas gaari karin. waan gaaraynaa, tanina waa bilowgii. marka maanta waa maalin weyn, waa maalin ku cusub ummadda Soomaaliyeed, ku cusub waay in 3,000 oo macallin la qaadanayo, dadka Soomaaliyeed in loo sheego si cadaalad ah loogu sheego, si kasta oo ay qofku fursad uga mid noqon lahaa in loo sameeyo. maanta waxaa sida la sheegay imtixaanka gelayso 8,000 oo macallin oo Soomaali ah, oo 8,000 qof waliba uu rabo inuu ka mid noqdo 3,000. waxay ku gelayaan 22 goobood iyo 11 magaalo. magaaladan caasimadda ah 10 meelood ayaa laga gelayaa, inta kale waa dowlad goboleedyada. fursad fiican ayay u tahay shacabka Soomaaliyeed, waa guul. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo macallimiintaas ku guulaysan doona, inaan idhaahdo hambalyo hordhaca inaan u diro. waxaa kaloon u sheegayaa inay ogaadaan inay mas-uuliyad qaadi doonaan, waxay ku shaqayn doonaan oo la siin doonaa mushahar laga soo arooriyey hooyada Soomaaliyeed ee bannaanka la fadhisaa yaanyada iyo dhowrka xabeen muuska. marka mas-uuliyaddaas ayaa fuuli doonta haddii la yidhaahdo. waxaana rajaynayaa inay ogaadaan in ay laysdabageli doono, laysku xisaabtami doono, hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in canugeeda inuu wax ugu barto.
gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay marka macallimiintaas mas'uuliyad aad u adag ayaa fuuli doonta waxaana rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo dad tayo leh oo qiimalaha soo bixi doona maxaa jira 8,000 oo macallin haddii 3,000 laga soo oo weliba markii ay ku timid 8daasi short list ay ku yimaadeen oo kadibna markay imtixaankaas galaan saacado badan socon doona maanta haddana interview ay geli doonaan haddii la yidhahdo interview laga qaadi doono kadibna 3,000 saas ay ku soo bixi doonto taas micnaheedu waxaa weeye inay soo bixi doonaan macallimiin tayo leh oo ubadka Soomaaliyeed waxbarasho tayo leh u gudbin doona haddii la yidhahdo marka macallimiintaas mas'uuliyaddaas aad ugu weyn baa saaran wayna ka soo bixi doonaan ilaahay idankiis dawladdu way dadaashay xukuumaddu way dadaashay wayna dadaali doontaa tanina waa bilow kuwa soo socdana sanadaha soo socdana waxaan rajaynayaa inay sii bataan sanadkan 3,000 ee macallin ayaa budgetka lagu daray ee xukuumadda marka sanadaha soo socdana insha Allah way sii badan doonaan ilaa aan ka gaarno in aan ubadkeena u helay waxbarasho waliba bilaash mas'uuliyaddaas macallimiinta markaan ka gudbo shacabka waxaa saaran mas'uuliyadda saaran waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ka rabnaa maadaama aan bilownay inaan dib u soo noolayno waxbarashadii oo ay ka bilaabatay in 3,000 oo macallin la qaato de 3,000 ee macallimiin waxay u baahan yihiin iskuuladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka Soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay'adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dawlad goboleedyada ha ahaato meel kasta oo la joogo dadka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay banneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka Soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalay ee hay'adaha waxbarashadu lahaayeen ee wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la banneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si ubadkeenu wax ugu bartaan in ay qoys deganaa ama qoysas deganaa deegaan muddo deganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa way xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu talagalay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaaraayo oo bannaanka asagoo kabala taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaa darteed danta caamka iyadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ayada oo aan la qasbin ayaga oo aan la pressure garayn inay si ayaga ka timid inay u banneeyaan iskuulada iyo meelaha kale ee waxbarashada loogu talagalay ee ay degan yihiin waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ammaanka ee shaqada ku leh iyo hay'adaha waxbarashada kulligood inay iska kaashadaan in la banneeyo goobihii waxbarashada si loo dhiso ama loo dayactiro oo loogu diyaariyo inay ubadkeena wax ku bartaan taasna waa laga maarmaan waa cusub baa inoo bariyey waqti cusub baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan dib u soo noolayno dhammaan adeegii bulshada maanta inay noo bilaabatay marka guul baan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed guul baan u rajaynayaa wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare waxaan leeyahay guulaysta macallimiintana waxaan leeyahay guulaysta hambalyaan leeyahay waddankeenu horay buu u dhaqaaqay aan halkaa ka sii wadno ana iskaashanno si dhowna aan u wada shaqeyno waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh